munaasabad lagu maamuusayay qalinjibinta in ka badan 200 oo arday oo ka kala qalinjibiyay heerarka daraasaadka sare ee PhD-da masterka iyo dibloomada sare ee jaamacadda Muqdisho ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho. munaasabadan waxaa ka qayb galay mas'uuliyiin sare oo ka tirsan dowladda Soomaaliya oo ay ka mid yihiin Ra'iisul Wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, wasiiro, aqoon-yahano, maamulka sare ee jaamacadda Muqdisho iyo marti sharaf kale. Professor Saciid Abuubakar Sheekh Axmed oo ah hormuudka barnaamijka daraasaadka sare ee cilmi baarista ayaa ka warbixiyay barnaamijka daraasaadka sare ee jaamacadda Muqdisho iyo ardayda qalin bedelatay. haddii tirkoobka si kooban aan u sheego masterka ardada halkaa fadhida oo qalinka bedelanaysa waxay gaarayaan tiradooda 133 arday, 8 waa diblooma sare, 8 waa PhD. gabdhahana waxay ka yihiin 30%. waxaan rajaynaynaa mustaqbalkana inta ka badan in tiradooda insha Allah kor loo qaado. intaa kadib anuu hadalka soo koobayaa takhasusaadka ee ardadani caawa ee qalinka u bedesheen waxaa ka mid ah education, international relations, political science, public health, health management, English language, history and civilization, applied statistics, private and public law, usul al-fiqh, economic policy and planning, social work, GIS, MBA, ICT and environmental study. waxaad dareemaysaa marka takhasusaad aad u fara badan oo dalkeenu u baahan yahay. ardada halkaan fadhida marka waxay isugu jiraan arday Soomaaliyeed iyo arday maxaan ku raahdo ajnabi ah. taa marka waxay reflection u tahay in barnaamijkan uu yahay barnaamij aad u najaxay. waxaadna ogtihiin sanadii aan soo dhaafnay ilaa hadda ardadeenu waxay isugu jiraan ajnabi iyo maxaan ku raahdaa Soomaali. waxay kaloo macallimiintana sidoo kale waxay isugu jiraan ajnabi iyo Soomaali. ardayda qalin bedelatay waxaa ka mid ah ajaanib u dhashay waddanka Turkiga, taas oo muujinaysa soo kabashada waxbarashada sare ee Soomaaliya. Dr. Salag Baas oo ah mas'uulka ugu sareeya hay'adda Turkiga ee Macaarif Foundation oo ah muwaadin Turki ah kana mid ahaa xubnaha qalinjibiyay ayaa amaanay horumarka waxbarasho ee uu ku sii socdo Soomaaliya, iyadoo sidoo kale goobta ay ka hadashay Shukri Xasan Cusmaan oo ka mid ahayd qalinjibiyaasha. Today is a celebration of not only our degrees but also years of hard work, sacrifice and perseverance. We are deeply grateful to Mogadishu University for providing us with a strong academic environment, valuable knowledge and the opportunity to grow as researchers and professionals. aniga ka shukri ahaan waxaa sharaf iyo fakhri ii ah runtii inaan arday jaamacadda Muqdisho bajularkeyga aan ahaa oo business administration batch 2006kii dadkii ka baxay aan ahaa. macdaalikana ilaahay uu ugu manaystay ilmaha aabahooda saas oo kale inuu reer jaamacadda Muqdisho ahaa. caruurtayda inay reer jaamacadda Muqdisho yihiin, laba ka mid ah midna uu shareeca wal qaanuun uu ka baxay, midna uu civil engineering uu ka baxay. wuxuu kaloo ilaahay igu manaystay baajkii ugu horeeyay ee Open University Malaysia halkan laga sheegay jaamacadda Muqdisho ee hoosta gareenaysay masterkeedii dadkii ugu horeeyay qaatay inaan ahaa oo business administration ah. maantana masterkeyga labaad ee qaanuunka markaan diblooma caali oo qaanuun aan sameeyay bacdigeeda. waxaan leeyahay jaamacadda Muqdisho aad u mahadsantihiin. gudoomiyaha jaamacadda Muqdisho Ibraahim Maxamed Mursal ayaa hambalyo u diray ardayda qalin jabisay isagoo boogaadiyay dadaalkooda waxbarasho. waxaan idinkula dardaarmayaa in ay noqoto aqoontiinu aqoon iftiin leh oo hoggaan idinku hoggaamisa inaad wax uga beddeshaan bulshada Soomaaliyeed. shahaadada aad qaadan doontaan maantana ay noqoto ballanqaad inaad u ballan qaadaan ummadda Soomaaliyeed waxqabadka qiimaha leh iyo isbeddelka aad ku samayn doontaan waxbarashada aad barateen insha Allah. jaamacadda Muqdisho
waxay aaminsan tahay iyadoo muddo hadda 30 sano soo shaqaynaysay aragtideedu waxay tahay in dal iyo qaran lagu dhisi karo aqoon cilmi baaris iyo in la helo jiil karti u leh inuu hogaamiyo isbeddel sidaasi darteed waxaan sii xoojin doonaa oo sii wadi doonaa insha Allah taala inaan hormarino tayada waxbarashada cilmi baarista iyo adeegga bulshada ugu dambayn waxaan jeclahay inaan hambaliyo iyo bogaadin aad iyo aad u qiimo badan halkan uga soo jeediyo qalinjabiyaasha qiimaha badan ee horteena fadhida aan idhaahdo iyaga iyo waalidiintooda iyo asxaabtooda iyo eheladoodaba iyo macallimiintii ku soo dadaashayba hambalyo aad iyo aad baad u mahadsantihiin. wasiirka waxbarashada Soomaaliya Faarax Sheekh Cabdulqaadir ayaa xusay in waxbarashadu tahay furaha horumarka una muuqdo iftiinka waxbarashada Soomaaliya. jaamacadda Muqdisho xilli aad iyo aad u adag oo dadku aanay rumaysanaynin ee waxyaabo kale lagu mashquulsan yahay ayaa Dr. Cali Sheekh Axmed iyo asxaab kale oo isagu markaa la socotay yaa waxay fureen dooda ah Soomaaliya maxaa loo sameeyaa ma la sameyn karaa jaamacad waliba dadku waxay ka imaanayeen markaas wixii hore ee kacaanku uu nooga tagay oo ahayd jaamacad dawladda iskale marka meeshani inay jaamacad dawlad kaliya lahayn waa la ogaayo adduunyada kale taa ka jireen jaamacado aanay dawlad lahayn laakiin su-aashu waxay ahayd meel aanay dawlad jirin see jaamacad looga sameynayo su-aal adag ayay runtii ahayd waxaan ku faraxsanahay in dadkii maalintaas jaamacadda galay iyo dadkii waxbarashada galay ay maanta tiir u yihiin dowladnimada Soomaaliyeed guud ahaanteed. Ra'iisul Wasaaraha dalka Xamse Cabdi Barre ayaa tilmaamay in jaamacadda Muqdisho ay door weyn ay ka ciyaartay horumarinta waxbarashada xilli adag oo dalku u soo maray. jaamacaddan waxay runtii mudan tahay mar walba in la xuso mar walba in lagu ammaano horyaalnimadeedii iyo geesinimadeedii iyo xilligaas isbeddelka waxa la yiraahdo waxaa sameeya dad yar marka jaamacadda Muqdisho inay jaamacaduhu way wada jiraan culumtana way wada leeyihiin laakiin waxyaabaha ay ku bedelan tahay iyada kaga duwan tahay jaamacadaha waxaa weeye waxay bedeshay trajectory nolosha markaas ay u socotay oo dhan waxay bedeshay perception-ka jiray ayay bedeshay marka roolka ay leedahay weyn ee runtii ay ku xusan tahay waxa weeye inay isbeddel ku samaysay bulshada Soomaaliyeed marka waanu mahad celinaynaa aad iyo aad bay u mahadsan yihiin cilmiga mar kale waxaan u hambalyeynayaa dadka qalin jabinaya walaalahay rag iyo dumarba hambalyo ayaan leeyahay Allah idin barakeeyo cilmigiina mid nacfile oo lagu anfaco Allah idin ka dhigo laakiin anaga siyaasadda xukuumadda dan qaran asal ahaan waxa weeye waxay ku taagan tahay in la investment lagu sameeyo qofka aqoonta marka number 1 noqon doonta oo 1 iyo 2 iyo 3 ba noqon doonta maalintan ka soo jeedsano amniga oo si ku meel gaar ah hadda insha Allah aan rajeynayno inuu wadanka Ilaahay uu nabad inooga dhigo meesha ay Soomaaliya u socoto oo aan rabno Soomaaliya cidda naga dambaysa inay la aado oo u kaxayso waa waxbarashada furaha horumarku waxbarashadu inay noqoto 1 2 3 4 priorities dalka inay noqdaan. jaamacadda Muqdisho oo ah jaamacaddii ugu horeysay oo la aasaasay burburkii kadib waxay soo saartay kumanaan arday oo ka qalin jabiyay heerarka kala duwan ee bachelorka, masterka, PhD-da iyo dibloomada sare
kuwaas oo ka shaqeeya hay'adaha kala duwan ee adeegyada siiya bulshada Soomaaliyeed. Abshir Cabdullaahi Amiin, TV-ga Universal, magaalada Muqdisho.